igana aqbashay inaan waraysigan kaa qaado aad bay runtii farxad igu tahay mar kale ayaan kusoo dhaweynayaa aad baad u mahadsan tahay baraha bulshada waxaa lagu arkayay adiga oo magaalada muqdisho la wareegaya microphone aad dadka uga digayso cudurka coronaviruska inay kala baxaan inaan maqaayadaha la isla fadhiisan shaaha la isla cabin muufada la isla cunin nin dhalinyaro ayaa tahay adigu maxaa kugu dhaliyay arrintaas iyada ah maxaad ku handistay in aad adigoo nin dhalinyaro ah dhaqaale aan haysan lugaynaya baabuur aan haysan organization iyo NGO aan ku tiirsanayn maxaa kugu dhaliyay ayaad isleedahay in aad microphone inta qaadato odayaashii ku dhali karay awooyaasha adeerada abtiyaalka aad ka waaniso inay cudurka qaadaan oo aad ugu tagaysa maqaayadaha aad u mahadsantahay adiga iyo asxaabta kugu xiranna waan salaamayaa su-aasheeda haddaan u guda galo aniga horta shakhsiyan axmed ahaan waxaan targetka saaraa ama aan wacyigeliyaa waa dhalinyarada ayaan xoogga saaraa dhalinyaradana anaa dhalinyara ereyga dhalinyarana waxaa waaye qof weli wax tagaya aniga marka waxaan dareemay waddankayga inuu ka jiro baahi ka jirta oo dhanka wacyigelin la-aanta ah aniga shakhsiyan haddaan si kale isku kaa sharaxo dhalinyarada inta badan waxaan kala hadlaa tahriibta dhib uu tahriibka leeyahan soo arkay markii hore waxaan microphone-ka u qaatay wuxuu yahay inaan dhalinyarada Soomaaliyeed aan kala hadlo tahriibka anigoo isticmaalaya microphone-kaas waxaan ugu talagalay waxa weeyaan inaan meelaha dadka isugu yimaadaan aan tago oo aan tusiyo xaaladda taagan markaasi balse hadda waxaa soo baxday xaalad kale oo ka gedisan tii tahriibka oo ah maadaama tahriibka uu istaagay isbarbardhig baan sameeyay markaas isbarbardhigaas waxa waaye tahriibkan waa ka hortag dawo ma laha ka hortag mooyaane coronavirusna dawo ma laha in bulshadii la wacyigeliyo oo laga hortago fariimaha wacyigelintaana la qaato marka aniga marka waxaan isticmaalayaa waa microphone-kayga microphone-ku hadda battery ma leeyahay ha battery waa leeyahay mana maqashin kartaa hal mar sida aad u isticmaasho oo ay maqashaa malaynaa si wanaagsan marka oo bulshada aan wacyigelinayo sidan oo kale intaan u hadlo ayaan waxaan istaagayaa isgoys kasta iyo maqaayad kastaba ma fahantay wax naga maqashay ereyada aad adeegsato please ani ereyada adeegsado waxaa ka mid ah in coronavirus uu yahay aafa halisa hal iska ilaaliyo coronavirus waxa weeyaan wuxuu albaabada isku dhuftay saddexda masaajid ee ugu waaweyn dunida oo ah masjidka Makka iyo Madiina iyo Baytul Aqsa marka bulshada Soomaaliyeed waxaan ka codsaday inay foojignaadaan oo is ilaaliyaan cudurkaas leeyahay cudur halis ah oo mar walba mudan in qofku foojignaado marka bulshada Soomaaliyeed waxaan ka codsaday inay is ilaaliyaan dadkooda iyo naftoodaba ay ka naxaan goormaad qaadatay goormaad soo kala isticmaala yaa walaal goorma ayaad qaadatay fikirkan ah inaad hawshan qabato fikirkan waxaan arkay waddankayga waddan kasta wuxuu leeyahay aqoon hadduu waddanka dad uu haysto waa inuu dadkiisa uga faa'iideeyaa xoogooda iyo caqligooda iyo aqoontooda marka aniga waxaan dareemayaa waxay tahay inaan xoogayga uga faa'iideyn karo wixii aqoon aan uga faa'iideyn karo aniga ruux dhalinyaraan ahay waddankayga uu ii baahan yahay maalintuu ii baahnaa baan taaganahay marka saa daraaddeed bulshadeeda inaan wacyigeliyo oo wax u sheego ma dhibsanayo xitaa dad baa ka xishoonaya inay soo baxaan oo dadkii ay yiraahdaan inaan sidaas ma haboono anigana baawur ma isticmaalo bajaaj ma raaco sababta waxaan intaas u sameeyay waxa weeyaan haddaan bajaaj raaco hal qof baa ku dhageysanaya gaariga ama asaanadna waad ka gudbaysaa qofka ku dhageysan lahaa laakiin 10 daqiiqo waxaad la hadlaysaa 50 qofood saacadii ku dhawaad ilaa 200 qof baad la sheekaysanaysaa oo fariintaada aad gaarsiinaysaa marka aniga waxa igu kalifo waa maxay inaan kaalinteedii muwaadinimo aan ka soo baxo aan dalkayga u shaqeeyo iyo dadkayga sababta asaga ii baahan aniga maadaama aan ku soo dhex koray aan ku dhashay aan ku caafimaad qabo waxaan rabaa inaan abaal ugu gudo waddankayga abaalkayga oo ah inaan wax u qabto bulshadeedii aan ku dhex jirana aan fariinteedii aan garanayo aan u sheego dadkana waxay isku jiraan dad wax aqriya dad wax dhageysta dad wax daawada aniga dadkan wax u taga dadkan fariinteeda gaarsiiyo waa dad wax dhageysta waaye waa dad idaacad ku xiran ama wax u dhageysanaya laakiin bulshada dhalinyarada markay noqoto waxaan kala hadlaa social media sida aalada TikTok la yiraahdo iyo WhatsApp-ka iyo Facebook-ka iyo YouTube-ka xataa waan kala hadlaa sababtoo waxaan kala hadlaa waa maxay xaalad taagan waaye dhan kastaba dhalinyarada ka wacyigeliyo aan jeclahay bulshada Soomaaliyeed walaal
aad baad u mahadsan tahay odayaal waaweyn oo waxaan arkaya maqaayadaha fadhiya oo aad leedahay ka kaca cudurka iska ilaaliya reaction caynkee ah maxay kuu soo falceliyeen jawaabtoodu maxay noqotay marka aad sidaa ku tiri aniga markaan istaagay microfonkaygii aan ku hadlayo qof waliba geesoo fiirinaya wuxuu eegayaa halka codka ka soo baxaya markaan dhexdooda aan istaagana nin walba wuxuu isoo attentionkiisa soo aadinayaa dareenkiisa wuxuu xaggayga usoo jeedinayaa oo dhegeysanayaa marka waxaan islahaa xaaladdan aad ka hadlaysa dadka kuma baraarugsana oo caqabadaad kala kulmi kartaa baan islahaa laakiin markaan 3 qofood oo odayaala dhexda aan u galay waxaan dareemay in ay igu farxeen xitaa markaan idin hala kala fogaado qaarkood ayagoo dalbadeen kobashiin ama cabitaan dalbadeen waxaan arkay ayagoo kuraastoodii kala fogeysanaya oo aan mararka qaar xitaa markaan hadlayo media oo kale tviyada oo asaas barnaamijka aanoo sameynaya iga duubayeen xitaa way ka jireen dabcan laakiin aniga waxaan u sameeyay waan u duceynaa waxaan ilaahay aniga qabto dhammaantood ayagoo ii duceynayaan oo niidoodu happy tahay ayaan ka gudbaa meeshii aan ugu tagay meel kale markaad tagan qaab kadaalik sidaas oo kale marka dadku waxaad u malaysaa inay niyad fiican